السلام عليكم Soomaaliyeey meel kasta aad joogtiin see la yahay la fiican yahay ma la nabdoon yahay dadkay habeen u tahay dadkay maalin u tahay dadkay subax u tahay maanta life baan rabaa inaan soo galo onkad wuxuu dawaareeyay dulucdiisu waa meel airport baan ku jiraa waxaan u falay garaynayaa Mareykan saacadan waan laba bari soo joogaya New York baan tagayaa ka bacdina waan ka soo noqonayaa hadii Ilaahay sii dhanbaan imaanayaa saxaabtayda inta jecel iyo inta maqalkayga iyo muuqayga taqaana waa salaamahayaa waa Sacdi Soonaari wax la qariyo qurun baa ku jira Soomaaliyey Ilaahay baa horta noo maqan Ilaahay baa noo maqan ummad ehele oo isku diin oo isku afa oo isku aragtiya oo isku si dharka u xirata oo isku dhaqan iyo tareedaqoon ah maxaa isku dhaqan isku culture ka wada oo intaas propaganda iyo waxaan ku leeyahay ay iyo qabiil YouTube-yadii iyo Facebook-yadii hadda waa ka sii dareen shaydaanka baad ka farxisiin malaa'igtana waa ka nixisiin horta taa ogaada sababtoo ah qofku markuu wax xun sheego aan Ilaahay raali ka ahayn waxaas shaydaan bay u ahaato waxa oo muxuu ahaayay lagu waxa ku farxaya jinka iyo shaydaanka ku farxaya malaa'igtuna waa ka naxaysaa buuga xun baana leeyin qoraya ogaada adduunyaduna waa waqti kooban inaad isdaba gashiin maahan inaad isxabaal qufaysiin maahan inaad israaraadisiin maahan qof perfectiya ma jiro qof kaligiis muxuu ahayd okay ma jiro muxuu ahayd insaanku wax waaye wuu qaldamahayaa waxbaa ka dhacaya mideeda kale wixii qabiil ku dhaqma oo dadka wax waaye qabiil ku kala fogeeya oo qabiil ku kala karantiila oo qabiil ku caaya taasna waa dadnimo xumo dad way jiraan horta waligood muxuu ahayd la yasi jiray oo muxuu ahayd Soomaalidu dambi ka gasho kuwaas waa wax weey waa ana other way waa wax kale laakiin Soomaalidan kale oo ha kala badbadnaato Ilaahay dadka laba wada dhalataan isku awlaad noqon qabiiladuna saas oo kale u kala badan yihiin oo u kala tiro badan yihiin laakiin nin walba sida Ilaahay kartidiisa iyo aqligiisa Ilaahay siiyay waxaad ogtiin Soomaali inay maanta meel kasta ku dhibaataysan tahay dadkii dadna sixir baa baabashay oo dadkii intii badneed waa la sixiray dadna al-shabaab baa laayay waad ogtiin oo qarxiyay ku baaba'een waxa haray marka lufan iyo rifan baa harahaya wax kale oo harahaya ma jirto hadda magaaladan hadda aan maanta ka baxaayo oo Toronto أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سلام قولا بالرب الرحيم ومقالة حاسد هو مساجد كتشوغ انت بدن وادد فيعا لكن واحد أوقاتين وحال يردرسكا مر كدايو مرنا كدين مرنا كدرنو واحد أوقاتين صومالي وادد لوغو سو دولي oo diinta looga soo duulay oo aqliga looga soo duulay oo dalka looga soo duulay laakiin ma ogtihiin ma ogidin wixii aan ogeyn baan inii sheegaya haddaad ogtihiin waad israaci lahaydeen oo waad ismaqli lahaydeen oo waxyaalaha qaarkood baad iska deyn lahaydeen oo ragga qayrul mas'uulka oo ilmahooda inta ka tago ilmahooda xirxiran yihiin ama maxay xaasaskoodii ka tagay biinan jagooyin u dhiibateen marka waxa weeye koomo aanan arkaynin yaa waxaan habeen aan dhageysanahay suurada baqara waxaan dhageystay walo reer binu Israa'iila oo 40 sano wareeg ku jirtay rondel ku jirtay inay wax qabanayaan bay u qabaan hadda marka suudadka aad xirateen waxay qaban mahayaan sababta madaxweynaha inii soo koro deyn meysaan oo ninkii inii yimaado deyn meysiin oo midka caaqilka iyo midka wadaadka iyo midka tuuga waa iska kiindarsan yihiin yaa qofku markuu aqli leeyahay oo wax fahmayo oo wax kala saari karo iyo xumaan iyo wanaag uu kala yaqaan faanteen waxbaa loo dirsadaa
qofka xoogaa muxuu ahaaye caalla ma ahan laakiin qof dharkiisa qaba waxna qabsan kara shaqaysanna kara laakiin maynka xagga maskaxda ka liita oo aan fakaraynin ma lagu waxeeyaa hawl ma loo dirsadaa waa may waxaa samaysiin soomaaliyey sidaan si iniima aha dalkiina waa lagu jiraa dalka waa lagu jiraa dadka suudadka qaba qaar baa caddaan la shaqaynahaya qaar baa cadowga la shaqaynahaya qaar baan danta Soomaaliya ka shaqaynayn qaar baa lacag iska qaadanaya waa ka xumahay diyaaradaha waxaa hadlahaya hogtoo la rihi karafoonki dad xabaa la sheegahaya marka waxa waaye haddaad dad fiican tihiin oo wanaagsan aad ahaan lahayn oo ismaqla qofka wanaagsan baan dooran lahayn fahanteen waxaa la yiri nacas baa la yiri ilaahay wuxuu ku dadaa laba wax ama taajir buu ka dhigaa ama wadaad buu noqdaa qof wadaad oo la leeyahay waa doqon ma aragtay sababtoo aayado quraan u daliilinaya haye mideeda kaleeto hadduu qof kale oo muxuu ahaa taajir la leeyahay asna ma aragtay waa doqon ma jiro sababtoo ilaahay subxaanahu wa tacaala adduunkan qaab iyo hab ayuu dadka ugu talagalay marka waxa weeye ninka nacaska oo xoogaa doongaha ama wuxuu noqdaa taajir ama sheekh buu noqdaa halkaas ilaahay ka dadaa kuwa badan oo aqli lana waa jiraan marka Soomaaliya waxaad ogtiin xagga wadaadada inay ka liidato wadaadadii firqa kala noqdeen dalkii in la kala jarjaray caruurihii Soomaaliyeed in muxuu ahaaye dawladda qabsadeen kale fahanteen oo la haysto oo cunugii muxuu ahaaye la dilahayo si midka kale loogu quusdayo xabad dhafoorka laga saarayo ma fahanteen dagaalka wadankii ka socda dibadana waa ka socdaa marka waxa ogaatiin Soomaali sixir bay isku wadaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ummadda waxa sixiraya ka qabto waxa sharta wadanaha ka qabto iimaankana haddaan hanuun qornayna ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaga Allah ku koobo Soomaaliyey sida isku dhaama Soomaaliyey danihiina iyo dalkiina iyo arrimihiina ka tashada caruurihiina ka fakara ana hadda gabar baan halkan 9 bilood jooga gabadhu waa saas hadda sheekadii maxay noqotay ta quraan la saaray in muxuu la sixray oo jin lagu daray oo balaayo lagu sameeyay laakiin waxa weeye laga faa'iido maayo qof walba qof hadduu dhibaato u geysto ha ogaado inuu ka faa'iideynin oo saas rondeel ayadoo ku soo noqonayso qof kasto Soomaaliyana u ducee muxuu ahaaye dadka dhibaataysan ama muxuu ahaaye dhibaatada ku dhacday dal iyo dibadba gabdhihii Soomaaliyeed waxaad ogtihiin inay ilmo la wada hantaabilifahayaan oo insam yihiin markaad soo korisid oo saad uga daba dhimanaysid oo aad uga daba ordaysidna xaasad quuri waaba halkan ku taagan oo qofkaas muxuu aqli u leeyahay muxuu u qurxoon yahay ilaahay baa qof walba si uu abuuray ma fahanteen Soomiina arkin qof baa ilaahay 2 mitir ka dhiga oo haddana wuxuu ugu diray hanaan tilaabo wanaag qof baa ilaahay wuxuu ka dhigay cigaalo gujo oo isku dubaaran oo moodid haan argeega soo ilaahay ma abuurin qof baa ilaahay san buuran siiyay oo weyn qof baa ilaahay tima jareera siiyay dadka marka quuri waaga la iska daayo qof walbaba wuxuu haysta ma sha Allah dhaha haddaad xataa geed qurux badan aragtin ma sha Allah dhahaya wax alla waxa taqaanin Soomaalida u sheega xaasad ha noqonina qof walba waxay taqaanid qabriga la gelin wax alla wanaago taqaanid waxa xunu afaafinaysiin iska daayay dadka abrabagaanaysiin iska dhaafa ma fahanteen waxaan ogtihiin dadka muxuu ahayd waqtigii hore waqtigii asxaabaha dadkii soo muslimay waxyaalaha ay sameyn jireen qaar baa intaasoo 100 oo muslimiina dilay Umar bin Khadaab gabadhiisa asiyadoo saas garka ay muxuu ahayd ciid uga jafayso xabaala marka waxa way qofka lama fiiriyo qaladku shala galay hadduu qofku soo hanuuno oo ilaahay subxaanahu wa tacaala toobadiisa qabsado oo diintiisa haysto ha ku mashquulinina hebla waa saas waa kufaarad hebla waa xagga ilhaan baa loo dhacay gabdhaha Soomaaliyeed oo waxaan ku leeyahay waxtarka oo wax garadka ilhaan baa la aaday maskiintaas milyuuna oo la sixray oo la og yahay waxayna gabdho maalin meel iskugu tagay hadalka ay ka dhex galeen meel gabdho iga casumay waxa la ogaaday milyuun waxa la yiri sariiraha quruxda badan oo Turkiga ah oo beejka oo ay meesha ku haysato markay sariirahaas u timaado markay waagi dhawida iska xaraysay fag bay ahayd markii kale ay ku haysatay Minneapolis waatay saas ahayd oo waxa ku leeyahay dharka iyo boog iyo baa dhigtay marka milyuunay laguma xaman waa lagu jecel yahay laakiin qaladka aad sameysay maanta waxay ahayd nabigeena calayhi salaatu salaam annaka waa wax naga qarsoon arrimahaas 6 sano in lagu siiyay
9 sanana lagu gurigeeyey culimmadu ayakaa yidhaahda laakiin inaa ka hadashid maba ahaynba waa xigmad ilaahiye xag ilaahay xigmad ka jirta weeye waxaan ka sheegnay in laga hadlana maahan waxyaalaha qaybka oo annaka muxuu ahayd culimmadeennu noo soo sheegaan in la farageliyo maba ahanba rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam waxaad ogtihiin dadkii hore waa waaweynaayeen midada kaleeto gabdhaha 9 jir ku baaluqa dadkii horena waa ogtihiin reer caadiyo reer muxuu ahayd cimlaaqi dadkii hore carbii hore dad waaweyn bay ahaayeen oo dadku waxaan ku leeyahay masago iyo waxay cuni jireen waxyaala oo muxuu ahayd nafaqo leh la cuni jiray midada kaleeto qarnigu ka dambeeyo dadku waa ka gaagaaban yahay marka annagu ma faragelin karno rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam asagoo nool baana la dhibaateyn jiray oo la dhihi jiray waa sixirow waa waalan yahay waa filaanfilow waa wiil xunoo fakhriya sideebuu nebi u noqday booy buu ahaa wixii lagu sheegay waa ogtihiin haddana rasuulka calayhi salaatu wasalaam dad inta jacaylkiisu ka batay oo dhibaato geysta maahane waxa qof asagu uu gacantiisa ku dilay ama uu dhibaato u geysta ma jiraan marka qofku hadduu inta dambaaba iska toobad keeno idinkuna ha sii dabagelinina ha ku mashquulinina ilaahay u barya ilaahay subxaana wa tacaala dadka u tuuga gabdhaha iska daaya gabdhaha ha dabagelin gabdhuhu waa hooyooyinkeen waa raran yihiin caruuray soo korsheen naag waliba single mother bay noqotay ilmaha lagu soo wada baajiyey 10 cunug baa lagu soo baajiyey dambiyaa laga galay hadda marka waxa waay gabdhaha laga leexdo gabdhaha ha laga leexdo gabdhaha dhibka ha laga dhaafo gabdhaha Soomaaliyeed waa beysti caruur bay wada koriyaan way dadaalaan inayna waalan bay ku fakaraan inay caruurtooda si fiican u korsadaan bay ku fakaraan idinku laakiin taad ka faygiina iskugu tagtiin bay war hebelow ii waran guriga ayaamaha lagugu haystay kii xataa la waayo maalinkaas aan naagtiisa dharka xaaskiisa dharka u dhaqaaya ama la sheekaysanaya fahanteen midada kaleeto gabdhihiina ma farfaruuran yihiin magaalada lama martiin lama xaragootiin maqaayadaha ma geysiin lama sheekaysatiin baabuurta kuma qaadatiin waxa weeye geedka haddaan geedaha ma aragta markii la abuurahayo geedaha aad baan u abuuraa waxaan marka ku fekeray jacaylka xataa waa la abuuri karaa mar alla markay 2 cunug dhasho ama 3 cunug dhasho uf maxaa uray intaas waxbuu goobahayaa intaa waxbaa ka maqan naagtiisa muxuu hagaagsan mahayo meeshay ku xun tahay ka dhisi mahayo halkaasaa ku liidataa dhihi mahayo ma fahanteen intaa waa wareegahaya waxbay goobahayaan caruuraan la korinayn bay dhalahayaan ilma aan la korinayn oo aan laga taxadarayn maxaa u dhalaysin ragyo ma sida cadaanka hal iyo 2 dhashiin ilma adeerayaalo sababtoo ilmihii ma dabagelaysiin kama fakaraysiin hooyadii maskuulkay aadaa ma cunaday karisaa ma gurigay xaaqdaa ma waxay aadaa maxaa la dhahaa samtool ii sheeg iskuulka markay leedahay ballan maxay samayn kartaa bal ii sheega meeqa qof ay noqoto anigu kolle ilmaan waxaan ku soo koriyey kali ahaan gabdho badan oo ka hadlahayana waa arkay situationkan soo marana ilaahay subxaana wa tacaala loo sheegan karaa laakiin haddaan hadda ka hadlo wax la ii qabanahayo ma leh ma fahantii xabaari mahayo hanadka aan dhalay aabihiis una ducayn mahayo dan baaban iigu jirin ma fahanteen gabar baa mar hore tiri marka waxa weeye lama dabagalo bannaankaa laga maraa fahanteen naagaha Soomaaliyeed gabdhaha Soomaaliyeed maasha Allah naag yaana dhihin waa boqorro waa 14aadyo waa madaalayaal waa dadaalayaal gabdhaha Soomaaliyeed yaan wax laga sheegin gabdhaha Soomaaliyeed yaan wax laga aad baan u nimcay markii gabdhaha laga sheekeeyo xataa hooyodayba iiga sheekaysay xataa miyiga xataa wallaahi in naagaha saas loogu dhaan baa la keenayaa biyaa loo keenayaa iyo sonkor yar iyo xoogaa timir iyo bariis waa la iska dhaqaaqayaa marmar adoog soo sahminahayaa waa saas naagaha markaas halkan inta lagu guursado ariga intaasoo sanad daba joogtay baa mid kale inta feerta lagaaga soo dhisahayaa leeyahay waa la weysanayaa waa saddexaysanayaa waa afraysanayaa quraan la bari mahayo iskool la geyn mahayo kuwii hadda iskuulada la geeyana waa kuwaana aan laga warqabin oo dawladuhu ka haysteen dawlad ku hoos jirtaan u bixiyay oo waxa dabagalaya iyo wax ka warqaban la arag ilmo la garaacay oo cajal laga duubay oo lacagti laga qaatay oo la dilay oo hoog iyo ba lagu dhigay muxuu sheegayaa oo maskaxdii barabool ka taagan yahay waxba sheegi mahayo wuxuu u baahan yahay in inta la isku tago caruurta laga fakaro in inta la isku tago dalka laga fakaro dalkana sheeko dheer baan ka hayaa waddanka iyaga waa lagu soo duulay aagaga ma taqaanid sunta
warqadaha xun oo lagu adeeganahay mataqaanid qashinkaana la ku fogeeyaa ragayagina waa kuwa suudadka xirtay suudadka waa idinka xirtay suudku dadnimo ma noqdo mid waxaa arkaysaa calooshu aad moodid 7 bilood inuu yahay oo askarta waardiyeynaysa geesaha maraysana hanyag naf aysa ku jirin xataa ma xishoodaan war waxa aad cunaysiin la cuna ragga in waardiyeeya oo meel kula cuna oo wiilasha in waardiyeeya quraanka bara sunnada nabiga bara oo muxuu ahaayeed waxa bartiin safina salaadka bara oo xusna muslimka bara oo ilmaha wiilasha quraanka u bilaaba mid walba carradii dagaalada ka dhaco dhib baa ka dhaco baadiyo inta ka soo ordo ama shaqo la'aan baa ku dhacdo wuxuu isleeyahay meeshan ama bariis ka heshaa haye sunta cagaarnaydna waxa la yiri inta midii Kenya la joojiyaa midii Ethiopia nala ku wadaa yaa 600 sano ka hor meeshan ka soo askunay soo midna arag harar ma ahayn waxa weeye waxa la yiraahdaa meeshaas waa aragteen jaad baa lagu soo baabiiyay dadka waa tii 600 sano Soomaalida lagu soo baabiiyay ilaa waa ogtiina Afrika 2 boqortooyaa ka jirtay midna harar bay fadhiday midna fircoon buu ahaa oo dhankaas iyo Masar buu ahaa marka waxaan samayn karno ma jirto gabdhaha Soomaaliyeed waa based all of the wall based weban weeye mid walba ilmay korinaysa hal iyo 10 kuna waa isku shaqo dharkii baa la dhaqaya cunadii baa loo karinaya gabdhaha Soomaaliyeed waa gabdhaha adduunka ugu fiican aniga waxaan iri haddaan Sweden anoo yar imaan lahaa oo 10 iyo 20 iyo jira anoo ka weyn baan imide waxaan jiray 28 sano baan jiraa uma leeynaya ka imid infaanteen wallahi inaan Soomaaliya salaam calaykum idhaheen raggaas caruurtooda korsanayo cadcad yaa lakum diinukum wali diin alla tareeyo iyo waa aragteen Ethiopia iyo muslimka iyo gaaladu waa iskuursadaan waxay Soomaalidu isku ceyrsata maxay tahay oo Soomaalida loo ceyrsanayo qofku hadduu ku fiican yahay diintaada waa haysan kartaa inkastoo la yiri gaal lama guursan karo laakiin aniga waxa nolosha Ilaahay subxaanahu wa ta'ala hadda ay leeyihiin nimankii naagtan gaalada oo dhahaysa hal la guursado halda walaalayaal ilmihi haddaan lagu la korsanay oo ilmo lagu baajinayo oo aad iska duqoobaysid oo aad fool xumaanaysid oo aad rafaadaysid shantay baad kacday ama afartaad kacday quraacdii baad inta miiska ugu diyaarisay dharkay xiran lahaayeen baa shaqo aad ama isteedish baad aaday ama muxuu ahayd cilmi ma baran kartid markaad ilmo kaliga ku tahay maxaa baran kartaa marka ugu roontaad luuqadda ilaa galaaska 9aad aad ka bixi kartaa ama luuqadaad habba iska dhiganaysaa mid baa kugu jiranaya mid baa waxba dhacaya gabdhaha Soomaaliyeed mid ay mareen waqtigii dagaalada wax maray ma jirto gabdhaha Soomaaliyeed ha loo naxariisto gabdhaha Soomaaliyeed ha loo tiro gabdhaha Soomaaliyeed waa in dawladda meel fiican laga geliyo waxaad ogtihiin gabdhaha Soomaaliyeed wax ma xadahayaan gabdhaha Soomaaliyeed waa gabdho aad u fiican Norway waa buug ka qortay waa ogtihiin 4000 oo nin baa saf ugu jirtaa liir oo dhaheen waa adduunka naagaha ugu adag naag 8 cunug haysa naag 5 cunug haysa ayagoo hal ma hayn karaan labanaan inta kala daalaan intooda badan haday rabaan dilaan annaka arka waxaan u soo samirnay ayadoo waliba nimankii turar nagu furaayaan oo nacaayahayaan oo suuqii noo galahayaan oo xataa dadnimadaada aysa kuu qirayn oo ina wanaagaaga kuu qiraynin oo guurkii shalay iyo sariirtii aan la fiirinaynin walaaltinimadii iyo kalgacaylkii ayaa waxaan ku leeyahay waad iska nooshahay iska ordaysaa dhexda xiranaysaa waxaas uma jeedi waa magaaladii baa lagu galahayaa suuqii baa lagu galahayaa adigina gurigii baad ku egtaa caruurtii baad haysaa gabdhaha Soomaaliyeed aad bay u fiican yihiin wallahi aad baan u jeclahay laga bilaabo hooyaday laga bilaabo ayeeyday ma sha Allah tabaarak gabdhaha Soomaaliyeed aad iyo aad waa gabdho fiican waa gabdho dadaal badan waa gabdho shaqo badan ilaahay oo gabdhaha Soomaaliyeed wixii wax ka sheega adaa rabbiyo adaan ku dirnay wax kale oo aan dhahna ma naqaano waa kaas heer bay wada gaareen maanta waxay noogu jiraan muxuu ahaayay aqalka cad oo Mareykanka ay fadhiyaan ma fahanteen MB bay gaareen waa kuwaas senator noqday waa kuwaas waa heerar wada looyaro wada noqday wax kalena waa soo socdaan gabdhaha Soomaaliyeed u duceeyay waa hooyooyinkan in soo koriyay in soo nuujiyay ha xumaynina jeclaada gabdhaha u roonaada mid dhibaataysan dhaqaaleeya dhaafa gabdhaha Soomaaliyeed dhaafa waa gabdho aad iyo aad u fiican ma sha Allah tabaarak waxa weeye hadii Ilaahay idmo Soomaaliyeey khayr baan isku ognahay iyo barwaaqo iyo bashbash waxaan aniga MKaygu oo ahaa caawayto in aan u sheego inay gabdhaha Soomaaliyeed gabdho ma sha Allah tabaarak ay yihiin oo fiican oo aan la quuri karin aniguna xataa waa ku jiraa end of dambaanaha ogaada end of dambaanahay gabdhaha Soomaaliyeed wada dadaalahaya hana abuukaro aad ogtihiin anigu hana toos iskuma naqaano laakiin hana waxaan ogahay
gabdho badan oo aan ku xiranahay ku xiran tahay hana ayada markay dabagaabka qabtay hana maradeeda salaadu waxay ugu jirta boorsada wallaahi gabdhaa ii sheegay wiil yar aan dhalay laakiin mar la tareenayn jirta rinki bii meesha hoose 2 jeeraan kula kulmay marna iskuul carabiya baan isla dhiganay maxaa ahayd shiista laakiin qofaan saas isku naqaana maahan hal dhaaf hana dad badan bay caawisaa qofku waa qaldami karaa qofka bilow aadanka dambi baa ka dhici kara ma fahanteen qofka subaxii markuu waxa la yiri raad arooriyo dab looma raaco ma maqasheen maxaa dhacay maxaa u tagaysaa saxaradii baa u tagaysaa wax kale aad u tagaysaa maxaa u dabagelaysa gabadha inta dadaalayso inta dad caawiso inta dad isku raadisay oo inta dad isku heshay gabdhaha Soomaaliyeed naagba naagta kale gabarba gabadha kale waa ka fiican tahay gabarba gabadha kale waa ka diracsan tahay gabarba gabadha kale waa ka qaalisan tahay sababtoo ah waxay qabtaan ma aragtiin waxay ilmahaasay waxaan oo adduunka wada marahaya kuwaas beenta sheegaya suudadka qaba xataa hooyooyinaa dhalay sidaas iyo khayr iyo barwaaqo ayaan inii rajaynayaa gabdhahan ha laga leexdo ana abuukar milyuun maasha Allah tabaarak gabdhaha dhan Soomaaliyeed mid idinkuna isdhaafa gabdhayo waxay iska sheeginina hal gabariyay gabadha kala caayin ma aragteen khataro 7 cunug ay haysaa ayadoo saasa ay 7 cunug haysaa oo koris oo iskool u dirtaa qamrada iyo waxaas kalena Allah ka hanuuniyo dhib ma laha way iska hagaagaysaa adduunka saas noqday qofku markuu depression noqdo ama wax gaaraan wax kastuu samayn karaa marka dhaafa 7 cunug bay haysaa ka warrama waa 7 cunug oo Soomaaliya 70 cunug bay biri dhalahayaan ma ku fakarteen professor imaanaya baylotayaal dhaqaatiir qofka u duceeya insha Allah bilkariin khayr iyo barwaaqo Soomaaliyeey anigana ii soo duceeyay in safarka Ilaahay ii fududeeyo aan dalkaygii hooyo tago 2 dal baan leeyahay mid waa Sweden midna waa Soomaaliya maxaa la yiri botta ay besti hema ay bro insha Allah bilkariin waa imaanaya fahanteen ii soo duceeyay in safarka Ilaahay ii fududeeyo idinkana khayr iyo barwaaqo inii rajaynayo waa la yimid sidaas iyo nabadgelyo